share gareeya like ta hada qaybta comment-ka fikirkiina igula soo wadaaga maqalad ba qaybta comment-ka fikirkiina igula soo wadaaga maqalad ba in qof aan qalad ka galay in aan raali geliyo maqalad ba qalad ma doqonnima qof aan gardara cad aan ugu gafay oo u aflagaadeeyay in aan dhaho sorry sidoo kale ma damiir xuma in qaladkii aniga aan galay inaan saxo ma damiir xuma ama fikirkiina qaybta comment-ka ugu wadaaga gabadhaasna iga raali noqoto salaamu alaykum saaxiibada igu xiran meel walba joogtiin waqti walba idinta wanaagsanaya idin leeyahay soo dhawaada haddii aad ku cusub tahay YouTube channel-kayga oo ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqato subscribe saar oo share garay muuqaalka like saar qaybta comment-ka fikirkaaga igula wadaag okay maanta maxaa ka hadlaynaa maanta waxaan ka hadlaynaa waa raali gelin barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay raali gelin yaa la raali geliha waxa la raali gelihayaa gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo qalad laga galay hadii qaladka galayaas qaladka laga galay waxa jirto gabar aan qalad ka galay oo aan waxba iga haleynin hadii xaq qabiil loo fiiriyo aniga qabiil waxaan ka dhashay Abgaal Cismaan gabadhaas amba hooyada Soomaaliyeed weligay iyo Allahay ma arkin iyadoo qabiilkeyga ay hayso ka gudub iyadoo dhul cideeda tiisa ay haysana ma arkin ka gudub gabadhaas oo hawiye inta meel u soo fadhiisata ay haysana ma arkin waxa garateen Soomaaliland waa fikir marka waa fikir waxa isweydiiyay gabadhan shakhsi ahaantaada farxiye ahaantaada weligeed iyo Allaheed kuma caayin oo adigoo ay haysid eena ku soo jawaabin eena ku dhihin waa qaldanta amba kalaam yani jawaab ku soo siinin koode hadana waxa is iri dulmideeyada horta mugga qaar ina adiga naftarka isku run sheegto waa muhiim mugina isku run sheegto waa wax loo baahan yahay gabadhaas diinta lagu islaamo wax iga haleysay oo farxiye ahaana ma jiraan ayadoo eray iga sheegaysana weligay ma arkin ayadoo ii gafaysana weligay ma arkin ayadoo qabiilkayga u gafaysana weligay ma arkin sagaashan qof kale la dagaasha markii qof kale la dagaasho anoo ida ayaan arkaa waas xisaabiye waxaan isdhahay farxiyo maxaa ka qaldan horta gabadha hadii qabiil ahaan la dhaho ayadoo qabiilkaaga caayayso ma arkin maxaa ku haysataa marka qarina is xisaabisa aad u wanaagsan tahay waxaan kaloo is iri gabadhan awlaadtaada ma caaynin qabiilkaaga ma caaynin wax kuwaaga ma caaynin kuwa aan isku heebnahnay isku qabiilnahnay aan 90 ilmaheyga wax ka sheego awlaadeeda caayo adduunku waxa ugu necbar ruux aniga awlaadeeda caayo kuwa aanan isku heeb ahaanin awlaadeeda caayaan sidaas ee tahay kuwaas ma u jawaabo waxa is dhahay dadka ku caaynayo adiga jiirka Ilaahay ka soo gooy u gafaayay uma jawaabtidi gabadha masaakiinta ah maxaa ku haysataa markaan xisaabtamay waxa ii soo baxday in aan dulmilay ahay oo aan gabadhaas masaakiinta aan dulmi ku haysto in wax iga haleynin fikir dheer kadib waxaan garowsaday gabadhaas inaan raali geliyo ma qaldana horta gabadhaas raali gelinta aan raali gelina qofka iigu xumaan rabo walaal macaan waa iigu xumaan kartaa gabadhaas raali gelinta aan raali gelina darteed qofkii iigu soo biir rabana waxaan leeyahay wad ku maasantaa ku soo biiritaanka team zone family ama family zone okay nimca joker sida wad ogtihiin waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed waa social media yani ku jirtaa weligii maartay iyadoo farxisoona caayayso qof il saartay idin kamid tahay nimca joker oo qof darteed hawiye u caayayso
ama nimca joker oo yacni abgaal caayayso ama nimca joker oo farxiisoona caayayso weli ilma saarteen waa maya waxaa jirto aniga nimca joker hadda ka hor maraan caay sababtaan u caayaan isweydiiyey gabadhan iyadii raga is haysteene maxaa ku cays gabadhan qabiil ma haysane ragay haysatay nin ragii iyada is haystee maxaa ku cays waxaa ii soo baxday inaanba caqliga dhanba batri low ka ahay oo shaydaan oo iwaday acuudu billahi min shaydaan rajiim waxaan garowsaday in qof shaydaan ku shaqeysanayo inaan ahay marka qaar shaydaanka in la iska rajiimiyo aad ay u wanaagsan tahay waa wax aad u wanaagsan acuudu billahi min shaydaan rajiim gabadhaas waxba iga mahaleen nimca joker ee walaalay macaaney waxaan ku leeyahay gef walba iyo qalad walba oo kaa galay ilaahay dartiisa igu cafi igana raali noqo ilaahay dartiisna igu cafi farxii waxba kama sameynin qabiilkeeda waxba kama sameynin mana taqaano sababtay kuu nacday mana taqaano sababtay kuu cays walaalay macaaney maxaa sameeyaa waxaa jiro qof saa u jecleeday hal mar xumaan inta lagaa aaminsiiyey iska nacaysid nimca joker saa u jeclaa waxaa liiga aaminsiiyey inay qof xunta anigoona raadinin shaydaana hore iiga shaqaysta yani maxaa isku tilmaamaa marka walaashay macaan horta adduunkan meel naloo soo joogo ma ogin waqti aan dhimaheena ma ogin xili nafteen loo imaanayo ma ogin anagoo og qaladkeena inaan la dhimanana horta waa wax laga fiican yahay qaladaan kaa galay qalad inaan kaa galay anigoo og maanta haddii aan la dhinto ma ogi camalkayga siduu noqonayo walaashay macaan qaladaan kaa galay qaladkii aan kaa galay waan qirsanahay waxaan ku leeyahay 100% I'm sorry raali iga noqo waxaa tahay qof sharaf leh qof yacni aad iyo aad u wanaagsan inkastoon aniga hadda aan aqoon kuu lahaynin haddana waxaan ku leeyahay hooyo Soomaaliyeed oo xun ma jirto waxaan ku leeyahay abbaay macaan raali iga noqo gef walboon kuu geystay raali iga noqo qof walboon kaala soo saftay raali iga noqo caay walboon ku caayay inkastoon TikTok aan ka caaynin on YouTube iyo Facebook kaliya aan ka caayay YouTube iyo Facebookna maanta waxa uu taaganahay in aan ka raali geliyo 100% walaashay tahay abbaay macaan igama mudnid in aan ku caayo adoo waxba iga haleynin igama mudnid adigoon ii soo jawaabin in aan maalin kasta aan qalad ka galo igama mudnid in yacni maxaa sameyn karaya horta sideeda banaane daarood iyo hawiye waa walaalo waa wiil iyo abtigiis daarood gabdhay naga qabaan anagana iyaga gabdhaan ka qabnaa arrinta hadda social media sida u socotana waxay tegi doontaa heer ay wiil iyo abtigiis isdilaan wiil iyo abtigiis isdilaa lama arki jirin walaalayaal oo foolxumada ku socotaan social media ka wadaan naga joojiya kasoo gudub aniga horta wiiligay anuu ku fikirin inaan qabiil caayo oo aan wax caayo sheedaana iduufsaday hal qabiilan caayay ma rabo in aan qabiil kale u gafo qabiilkaas aan u gafay ha igu ekaado qabiilkaasna waxaan leeyahay raali noqdo horena waa idin raali geliyay oo ilma aan habarar oo cuqdad iga gashay inta arkaan iri habareero idinka caayma cidiine raali noqdaan dhahay okay waa idin raali gelinayaa qabiilkaas hore waa u raali geliyay hadda waa raali gelinaa daaros raali noqda sidoo kale nimca joker raali noqda ma jirto qof isoo qasabtay inaan nimca joker raadiyo ma jirto qof waxa aaminsana ina dhig doontii gabadha waa laga dhaxaldo waa laga saan qofna igama dhaxaldo qaladkeyga ogaaday waana kirtay ilaahay subxaanahu wa tacaala aala xisaabtamaayo walaalayaalow qabrigii su-aasha aniga qof igala qayb qaadanayso ama su-aal qabriyeedkaas qof igala qayb qaadanayso ma jirto qof qabri ila gelayo ma jirto adduunkan anoo qaadana imaaday anoo dhar gashana hadlooya
dhibka inta iga dhaaftiin walaalayaalow gabadhaas waa walaashay ha iga raali noqoto shargaray muuqaalka u geeya abaay macaan 100% iga raali noqo ayaan ku leeyahay 100% oo ku raali gelinayaa 100% adiga iyo qabiilkaagaba si miisaan iyo mug leh iga raali noqdo waana ku maashitiin daawashada muuqaalka aad daawateen TikTok on weligii aan ka caanin xataa oo ka soo raali gelinaya oo waa balan aan qaaday oo xala markaa jiifanayay aan balan xala ku jiifto waa oo aan dhahay yaa rabbi yaa raxmaan yaa rabbi yaa raxmaan biri anigoo caafimaad qabo igu soo kici qaladkeygii oo ii muuqdo aanan raali gelin ama apologize ka bixinin in yacni aan dhinto waa qaato muxumo waa adduunya aakhira beel marka abaay macaan meel loo soo joogo ma ogin naftaan waa nagu amaano anaga malihin xilina loo soo baada nagala qaadanaya waa kuma sitiin daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.